السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود وهذا أدي هذا وما سنتين مقال كان وحنا بينا إن كل وداعو نينكي مدوجها شنتي قبلود الصومالي ذاها كولواد لبصنا كهر شيل جاري كدلين مينيابوليس محكمة دي سنة طلبات كلا صورة في كسرعة في المجال داسي أي دمامبا شن يتوانكي دمبي لجوسو إيدي حربيتي أي شلي كهلين هذا إميس السنة أو حبسيه أيو متيسن كرا وان idinla wadaagaya arintaasi ninkii Kilmar Abrego Garcia ahaa oo bishii saddexaad ee sanadkan maamulka Trump iyagoo adeegsanaya Alien Enemy Act isaga iyo nasogolooti badan oo Venezuela ka soo jeeda ay u masaafuriyeen wadanka El Salvador isla markaana muran weyn ka dhaxdhaliyay gudaha Mareykanka siyaasad ahaan maxkamadda sare ee maamulka Trump ku amartay in dib loogu soo celiyo Mareykanka oo gacan ay ka geysato ninkii dib ayaa loo soo celiyay laakiin waxa ay wasaaradda cadaaladdu ay ku soo oogtay dacwado la xiriira muqallasnimo oo maxkamad ayaa la saari doona arrimahaasina sidoo kale waan idinla wadaagayaa ninkii madowga ahaa ee shantii gabdhood ee Soomaalida ahayd shilka gaari ku dilay 16kii bishii June ee sanadkii 2023 maxkamadiisana ay dhamaadkii bishii hore ka bilaabatay magaalada Minneapolis ayaa shalay xeerbeegti waxay ku heleen dhammaanba 15kii dambi ee lagu soo eeday Derek Thompson oo 29 jir ah waxa maxkamadiisa ay bilaabatay 29kii bishii hore ee May waxana ayna dacwadoogayaashu ay maxkamadda soo hor istaajiyeen marqaatiyaal fara badan oo isugu jira booliskii goobta yimid markuu shil ku dhacay iyadoo ninkan la soo qabtay oo gaariga uu shilka ku geystay SUV Cadillac oo madowga intuu ka baxay meel Taco Bell oo friisto iska dhigayba qof aan ba gaariga isagu wadin laakiin markii dambe dad marqaatiyaal ay sheegeen oo qarinadiis waxay ku doodayeen inuu walaalkii gaariga waday laakiin walaalkii waxa uu marqaati fur sameeyay qamiistii oo yiri anigu gaarigu ma aan wadin gaariga markii airport ka soo baxnay meel baan istaagnay alaabaan isweydaarsanay oo koofidii uu watay Demarco ay kamid tahay oo Derek Thompson uu siiyay marka ninkan shilkaasi gaari in gaariga uu kaligii waday ayaa cadaatay oo ku socday xawaare ka badan xawaarihii loogu talagalay booliska ceersanaya kadibna Lake Street iyo Second Avenue lightka ku yaala oo casaan ah uu xoog ku jiray gabdhaha oo halkaasi marayay waliba habeenkaasi Jimcaha ay ahayd Sabtida ku xigtayna u diyaar garoobay aroos dhinaca qoyska ah in shantii gabdhood bay halkii ku geeriyoodeen gaarigii uu watayna uu sidaas noqday gaarigii gabdhaha ay wateen oo Honda Civic ahana uu sidaas noqday oo xitaa gabdhaha aan la kala garan waayay sida boolisku ay sheegeen imise qof ayaa gaarigan saarnay marka in qareenadiisu wax marqaati ma aysan u yeelin kiiska waxa xeerbeegtida gacanta loo geliyay maalnimadii in qamiista ahayd 5 saac iyo bar subaxnimo marka waxa ay la soo laabteen go'aankooda shalay abaaro